England show in loo jeedsado oo laga baxo aan la dhageysan waxa yiri caayay siyaasad ka socoto aan de siyaasad hageysanayn iscaayige ka jeedsado dadoo waxa la reer Soomaali meel joogto af Soomaali ku hadlo waxaan isku ognahay England show baan isku ognahay insha Allah Faysal siyaasadda waxaan rabaa shacabka aan siyaasadda jeclayn taageerayaashaada meel walba jooga maxaad horta leedahay marka ugu horeysa waxaan leeyahay si fiican baa yeesheen siyaasadda iska ilaaliya qofka soo hoobigiisa iyo wuxuu jecel yahay oo siyaasad ahayn ha ku dhaqaaqo bal marka Faysal laga tago siyaasadda xilliyada aadan siyaasadda aadan ku jirin maxaad jeceshahay hobbigaagu muxuu yahay maxaad qabataa horta anu hobbigaygu waa akhris ilaa arrimadeedii waxaana waqtiga waxaan ku qaadaa waan akhriyaa sportkana waxaan aqaanay long tenniska marna wax ma qortay adigu wax ma qortay oo haday noqoto suugaan haday say isku tiin baa suugaanta waxaan ka soo jeedaa family horta boqolkiiba 90 ay yihiin suugaanta hasaatee nasiib dara anigu aad baad u mahadsan tahay Faysal Cali Waraabe farxad bay tahay inaan maanta halkan aan ku kulanno waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo horta sida maxaad ku farxdaa waxaan ku farxaa aan iyo ugu farxaa marka aan caruurtayda la joogo ee wada wanaagsan yihiin xaaskayga la joogo family wada nabad ku soo hoyday maxaad oran lahayd iyaga laftirkooda qoysaskaas maalin walba is haysteen waxa wada xaasku waxa weeye saddex roor buu ciyaaraa marka waa inaan dumarka wax barnaa si aan qof dhan u noqonaa haddii dumarka wax bar weyno baarlaysi bay noqonaa hadaas waa laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu quriyay ablaha ma sha Allah maxaad u bixisay magacii Faadimo rasmi ugu magacdaray waxaan ku laday kii ayeeyay baar Faadimo baar Faysal ma sha Allah marka raggan afarta guursanaya Faysalow adduunkii wareeriyay ee afar baan guursanaynaa bal ragga iyagana ka war afartaasi wax leedahay plus and minus bay leedahay laakiin de waa diinta way noo fasaxaysaa dad madaxweyne imka noqotid marka arrimaha bulshada la eego waxaad ku soo kordhin lahayd arrimaha bulshada bas ee dhalinyarada iyo waxaas waxaan doonayaa yaradkana waan yareen lahaa barreeto waxaan ku wargeelkii wadkana wariyay dumarka lagu meeriyo meerka digaag baan ku yiri moogtay digaag oo kale Faysal xubniina digaag baan u diray digaag ma ka fiican digaag ka qarashmad waa kaash korop moogtay marka 40 geela lagu digaag geerisa xabad geela waa 1200 هي دقيقة دقيقة waa $10 marka galabta habli waad ka cadhaysiiso marka tiri digaag ma waxaan yareenayaa oleyskan dhalinyarta keenay gurugsiin soo bato waxaan ka soo baxay reer dad talin jiray ma qofka talin jiray uu dul qaadanaya wanaag uu garanaya dadka in loo sinaado garanaya ya aduu qadiya oran jiray waa isdhaafinaysaa maxamed siyaad barno dadka soo rogay moogto majiib ma wax ka dhigay wata Soomaaliya isku maqlaan isku meelays wax sax siyaasadda goobta siyaasadda waan ku yara tooranay waxaan jecelahay sidalaad marka wariyaasha ay ku wareystaan qaar baad ma tiraahdaa kulli wariyaal badan baad wareysateen wuxuu leeyahay waxa lagu leeyahay dawladii baa jeebka uriyay war ma nin jeebka uriyay tabaan ayaan rahay aniga ma nin jeebka uriyay tabaan waxa dakaaso ku weeraro dawladka celinsa dawlad kolbi igu noqday markaas aad u jawaabtay waxaan ma fiis ka tabanay waxaan ku leeyahay wax garanaysid wixii ma fariisay weydiin sameeyay habla la ka heshiida ما يحبلا يسمى دشان الدمر كعاد بدو عيارته إلهي هكو كرامية ما إلهي هكو كرامية وحاب دو قروح بدن تهاي أو النور ريسيد أو افتين بحي عادو تهاي وكرامة ذا عبادة ذا ما هو كرامة ذا Soomaali da nool ama Soomaalidii hore macnaha ma jirta qof aad istilaahdo qofkaas tiro heerka ma gaaraysaa Xasan Meegaag Samatar haddii lagu yiraahdo Faysal siyaasaddan oo dhan soo laalaab oo badeedaba inaga saar maxaad ku bedelayd horta tabliiq nabad ka shaqeeyo iyo diinta fidiyo wanaag ayaan ku bedelahay gudoomiyihii baatay u cid baatahay horta kelmadda Soomaali miyaan
mise guddoomiyaa kuu daayaa mise soomaalidaas soomaali baad hayso kelmadaas waa soomaali ma carabtu carab Soomaali Soomaali marka waa tii qoomiyadii moogta waa isku keenaysa dharka midabkiisa keed ugu neceb tahay ka barbaraale ma aragtay isku daadsan isku daadsan admoodee karbaashka kastaan dhacaya waxa la yidhi Faysal reer Soomaali horta waa la xidhin marka goorma naga deynaysaa bali horta caydan iyo marka dacartu kacdo oo dacartu boodo xilmad horta naga labada nin aad u makan reer Soomaali u kritaas gareeya waana cali khaliif labadii qolada waan kritaas wax kale ma sameeyno dawlad hagaajiyaan hagaaga waxaan iska ka weydiinay su'aal iska entertainment markaad gabadhaaduna reer Soomaaliya tahay wallahi wali Soomaali gabadh reer Soomaali guursanaysa ismaado haye هذا هو عرف marka waa jacaylkii kugu horeeyay no bismillah xaj ceelkii soo dhigay maxaa sax soo dhigay marka me waki waaray waki barmad ka noqday waaw ma sha Allah laakiin gabadha jacaylkii orisan jacayl waxa gaarud bool shaahid waxa la yidhi Faysal reer Soomaali horta waa la xidhin marka goorma naga deynaysaa bali horta caydan iyo marka dacartu kacdo oo dacartu boodo xilmad horta naga labada nin aad u makan reer Soomaali u kritaas gareeya waana cali khaliif labadii qolada waan kritaas wax kale ma sameeyno dawlad hagaajiyaan hagaaga waxaan iska ka weydiinay su'aal iska entertainment markaad gabadhaaduna reer Soomaaliya tahay wallahi wali Soomaali gabadh reer Soomaali guursanaysa ismaado haye هذا هو عرف marka waa jacaylkii kugu horeeyay no bismillah xaj ceelkii soo dhigay maxaa sax soo dhigay marka me waki waaray waki barmad ka noqday waaw ma sha Allah laakiin gabadha jacaylkii orisan jacayl waxa gaarud bool shaahid ma guursan laakiin gabadhaadi markay ku daawato marna ma kala hadasho khatiga jacayl ku jira marka hadlaysid arrimaha Soomaaliya maxaa Soomaaliya ka galay waxaan dawiyayna deyneen iyagii baa deyneen inuu meel kasta inta taganaya alloore Soomaaliland waxa ka tirsan Soomaaliya iyaga la hadal baan ku yiraahdaa laakiin arrintaas way taagantay waa marka quran murano marka arrintaas marka neertiisa noqotaan fariisoon ka xumay Soomaalida marka la eego oo aan ku wareysanayo Faysal soo qof Soomaaliya macnaha dhaqankeed ugu jeceshay culture-rada dadka qabiilada aad baad u kala taqaan ka ogaadeen ka jecel ogaadeen waa wax yaqaan dhaqankii Soomaali asalka ma guuraanki ayaa kuwaad ugu neceb tahay dhaqankeed u neceb tahay bal qushiye ha lagu kala guuriyo kariir muduga qushiye kariir muduga lagu ma tuso waxa weeye dumarkooda ragga ka soo horeynaya marka waxa la dhahay waa romantic iyo jacayl leena dheer yahay waa iska basaranimo waayahay tan saddeed kala doqoonsanaya Soomaha inay maxaa la yiraahdaa ishay malaha waxa keenaya jacaylka iyo muxubada iyo jacaylka aabaha ninkaaga aabihii baad mis la fadhiisan lahayd la laakiin dhulka way ka socdaan waxaad leedahay xisbiga u ciid haddana waxa tahay nabadoon marka xisbiyadu isku boodaan adigu horta waa dhex gashaa arrin odaynimaad qaadataa xisbigaagii marka waad ka tagtaa waad badbaadisaa horta xisbiga waxaan uwan sameynay inaan wax ku xumeeye Soomaaliya aan ku hagaajino sameeyo waxaan ugu danta xisbiga danta qof iyo danta waxaan ka horseetaa qaranka iyo cali khaliif galayd halkee baa laga yaabaa inay isaga egtihiin cali khaliif waxaan labada runtaan sheegnaa moogta waan dhiiranay waan geesiyaabanahay waan dhiiranay geesigu waan dagaal galay moogta laakiin dhiiranay xabad waan ka baqaan moogta ma geesi ma yahay xabad ku tahay laakiin waan dhiiranay isna wuu dhiiran yahay marka dhinaca karbaashka iskaga egtiin iyo inaan qoran Soomaaliya aan ku yara dhisno فرنتك مير كوضع هاينو عالنك بلوغا سيسكو تين إنا لله وإنا راجعون دواتنا هي ورد إنا حجر أسوس دي ما هي iska bedela ma ku change maado wala iska bedelaya markii aan ku weydiinay su'aasha waxaan islahaa armu Faysal ila buluuga nacabaha la buluuga waan gashanay aanku ma nacay buluuga waan qaatay Faysal horta calankana hadiyad baan ku siiyay ma sha Allah kul mar hada tirkii buluuga waan nacabahay
dee waa kankii aad jeclayd beergalkan waan ka helay